مناسبة قيمها له وحنا السلام يا غفور با مجلسة يا مسجد كيس وحنا السلام يا وزير وزارة الرماها بالشدة وحفلة اليوسف قبنقابي سلام كذب كنت فرحت بما تهاي إن كسوق يبقى والله وعيقلين تا يكدك تعدية كدعة الرورة يهويك سند والبنا وزارة ويقبتها باللغة الله وجدد اللغة الله أنا وحويه إن مش حسوسينه حقين مريان تعدية كدعية الرورة يهويك ما حي نسك قبلنا ورتيتان حيلو كقبلنا يقولين وحدوني أين نفتيميو horta kufsigu adduunka oo dhan buu ka dhacaa wuxuuna ugu badan yahay wadamada ugu horumarsan adduunka wuxuuna ugu sii badan yahay dalka Mareykanka hal gobol oo Mareykan ah inta ka dhacda ama magaalo Mareykanka ah Soomaaliland oo dhan sanadkii kama dhacdo waxaan taa u leeyahay inaan dadku argagixin oo Soomaaliland meel baas oo la isku kufsado oo kufsigu ku batay inaanay dadka maskaxdoodu gelin waxaan u yahay waxa duuqoodha ka dhaca muhiimadda ay isugu niminatahay sidee wax looga qabtaa ha dhaco waa sax dunidoo dhan uu ka dhaca laakiin sidee wax uga qabanayna sida koobaad aynu wax uga qabanaynaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo carruurta oo runtii wasiirkii hore wasiir ku-xigeenka waxbarashada aan la waafaqsanahay inaanu tacadigu ahayn kursiga oo kaliya dumarka tacadiye badan baa ku dhaca carruurtana tacadiye badan baa ku dhaca bulsho kale oo aan labada ahayn tacadiye badan baa ku dhaca haweenka guryaha ka shaqeeya tacadiye badan baa ku dhaca hooyada tacadiye badan baa ku dhaca waxayna ugu dhacaan waxaa laga yaabaa aabbuhu inuu 7 carruur ka dhalo inuu iska tago inaanu biilin inay la daalaa dhacdo inay la baabaado inay la kufto inay u dhibaatooto sida carruurta u korin lahayd ama ay u daryeeli lahayd iyada lafteedu waa tacadi oo cidii mas'uuliyadda lahayd ayaa gabtay waxa kaloo iyaduna tacadi fara badan ku dhacaa dadka naafada oo had iyo joor aan la xusin naafadu tacadi weyn bay qabaan xarumaha dawladda markay yimaadaan mobile meel ay ka galaan inkastoo taacidna aanan ku canaananayn ee wasaaradda hawlaha guud shaqada leedahay oo la rabo dhismo kasta inay ku waajibiso meeshii ay ka soo gali lahayd naafada hadalka kamida waa la magaa qofka naafada awar baa la yiraahdaa laangara la yiraahdaa waa laga cawdi bileystaa balaayo ama ilaahayd ama luglahayd baa la yiraahdaa waa tacadi waxa soo ma aha markaa tacadi ku si kaliya waxa soo dhan waxaynu kaga bixi karaa waa shuruuc afar baana ugu weyn shuruucda waa xeerka kursiga waa xeerka naafada waa xeerka qoyska waa xeerka carruurta xeerarka ayaa wasiir shukri waxa hadalkeedii ka mid ahaa guurtidu miyay waqti u weeyday runtii weeyday iminka muddo 2 sano iyo in ka badan 3 sano iyo in ka badanba xeerkaas wuxuu yahay guurtida waxaan leenahay mas'uuliyad baa idinka saaran sababaha xeerarkaasi waxa nimayeen waxa kamid ah marka lagu soo dhawaado oo lagu dhiirado culimadii baa dhinacooda haysta xeer kufsiba ma maqleen culimadu masaajid oo dhan bay ka qaynayaan gudniin ma maqleen hurdaday ka soo toosayaan haddaba waxaan rabnaa wasaaraddu marka ay qabanayso xafladahan oo kale culimada inay ku casuunto oo aynu nidhaahno war horta maxaa dadkan u haystaa sheekhow gabadha la kufsanayo maxaad u haysaa gabadha la googo idinka codsanaya xaflada kasta oo qabanaysaa noogu soo casuubo culimada runtii de door way ku leedahay shuruucda diintu laakiin dawayna commitment ahaadaan ka soo qayb galaan oo iyagu xitaa aragtida qabaan gudbiyaan oo sida sharciga iyo xeerka u arkaan soo gudbiyaan oo laga doodo laakiin wax la badhigareeyo meel iska yaala aanu noqon sagal way ag taagan tahay waanu classmate ahay aad baan salaamayaa xafladeydii
intaas hadalkayga ku soo koobaya dhammaanna waa u mahadcelinayaa wasaaradda runtii wasaaraddu shaqo badan bay qabatay waxaan ilaaway aan hadalkayga ku darayaa siyaasadii guddiinku wasaaraddu way samaysay waxay taallaa golaha waxaana madaxweynaha qaranka uga mahadcelinayaa inuu habkii siyaasadaha loo ansixin jiray wax ka bedelay oo siyaasadihii laga dhigay ministerial level oo taasi ay wasaaradda u fududaynayso in siyaasadii soo baxdo waa madaxweyne wasiirkaas saxiixaya siyaasadda ama madaxweyne u basad garaynaya madaxweynaha oo kay saaraya laakiin siyaasadii goluhu gacanta u taagi jiray ee dadkoo dhan la marin jiray looma baahna waa wax idinka idinku xidhan waxaan kaloo sidii horeba loo sheegay madaxweynaha uga mahadcelinaynaa oo shukri u sheegtay shirkii dhaweyd ee golaha wasiirada waa lagaga hadlay kursiga weliba madaxweynuhu si kulul buu ula hadlay intaana kuma daynay guddi buu u saaray uu hogaaminayo wasiirka awqaafta uu degdeg ka keena warbixin iyo soo jeedin intaasina way iga bishaaro wa salaamantii wa salaamu calaykum